qaybo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Togdheer warfadiyeenka kula hadlayay xarunta xisbigu ku leeyahay gudaha magaalada Burco ayaa dhaleelo culus u jeediyay xukuumadda Somaliland. Mas'uuliyiintan ayaa ku dhaliilay xukuumadda Somaliland tacadiga iyo xariga ay u geysato warbaahinta iyo caburinta xorriyatul qowlka. waxa aanay wax aan la qaadan karin oo laga xumaada ku tilmaameen in la masuuqo barnaamijka ardayda shaqo qaran oo ay sheegeen inay gaf ku tahay ardayda muddada u soo dhabar adeegtay in aan ku jirin guudka lagaga daro. waxaan doonaynaa inaan ka hadalno oo niman suxufiyiin oo magaalada Hargeysa lagu xidhay shalayto nimankaas oo sida la sheegay ay warbixin ka soo duubayeen ardaydii maxaan ku raahdaa hawsha shaqo qaran ku jirtay imtixaan la galay oo dad imtixaan ugu jiraan in maxaan ku raahdaa qaybo kale oo garabac area inta la yiri imtixaan bay soo galayaan dabeetna hadhowto la doonay kii imtixaanka saxda ah ku jiray ee u soo jabay ee maxaan ku raahdaa Mandheera iyo tababarka uu soo qaatay la yiraahdo halkaagii waxa galaya maxaan ku raahdaa ninka ka dulgeliska ah uriyaashii sidii markaa hawshaas bal dadka iyo shacabka u soo bandhiga waayo saxaafadu waxay leedahay xorriyatul qowl bay leedahay waxay dadka u soo tabisaa kolba wixii jira dawladda nimanka joogtay xukuumadda nimanka joogtaana waxaad moodaa in xaalkeedu uu yahay oo hawsheeduba ay tahay carjuuqdhe iyo car hadal oo suxufigii la xidhayo oo kii caqligiisa iyo maxaan ku raahdaa fikirkiisa ku hadla la xidhayo oo dabeetana arrinkeedu way noqday xabsi iyo xadhig waxaasina waxayna wadaya maaha waana caadooyinka lagu yaqaano xukuumadda militariga ee sii degdegaya ama maxaan ku raahdaa qarka u saaran inay saaxadda ka sii baxaan waxaan u malaynayaa tan maanta wadankeena ka talisaana raadadkii horun bay haysaa haddaad aragto xukuumad iyo suxufiga is haystiyo ra'iisul caamka oo la caburinayo iyo afkaarta oo la caburinayo waxay kow ka tahay arrimaha uu ku dhaqmo waxa la yiraahdo dictatorship waxa kale aan ka cambaaranayaa xariga suxufiyiintii shalay la xidhay la sii daayay iyo kala la hadhay Badri waxaan leeyahay suxufigu waa aragtidii bulshada ama indhihii bulshada wax xaraan baan leeyahay xarigiisu waxaan leeyahay cid kasta qusaysana xorriyadiisa loo soo celiyo inta suxufi xidhay ama dhibaataysan yahayna bulshada dhibaataysan waa bulshada iyo ummaddu halka iska gaadha waa media haddii media la caburiyana waxay u muuqataa in shuruucda qaranka lagu tumanayo oo kaalinta afraad waxa kale aan cambaaraynayaa shaqo qarantii barnaamijkii ka socday Hargeysa war xamar baynu kula culuwnay wax walba aniga leh gobolada waqooyi hadaynu nahay Somaliland iyo koonfur waxayna dhaxmaray colaadii ugu badnay wax walba xamar baalqday si laynoo lahaa ayuu halgalkii ku galay war Hargeysana xamar kale noqotay Hargeysana meenu ka go'aa wax walba Hargeysa leh 400 in lagu qabtaa waa xaraan baan imtixaankooda gobol walba waxa inta la qaybiyo in koota loo xidho gobol walba si soo tartamo oo gudihooda ay ku tartamaan oo Burca waxay leedahay Boorama waxay leedahay Gabiile waxay leedahay Laascaanood waxay leedahay Caynabi waxay leedahay gobol walba wixii uu isaga inta loo qaybiyo gobolada Somaliland oo gobol walba shaqo qarantiisu ay ku tartantaa ama dhalinyaradiisu ay ku tartantaa baa war wax walba Hargeysa la qaadan kari mayno hadii halka la idinka go'aysay taagantii Hargeysa ama qaranka wax u qaybiyaan madaxweyne tiyaama inaguna aynu Hargeysa ka go'no ilaa xamar bas aynu ka go'nay saasun baa sababtu taana waan cambaaraynayaa xaraan baan ahayd imkana in lagu qabtaa waa xaraan gobol walba koota lagu xidho lagu soo celiyo imtixaankiisa war dhaqaale wadanka wasiirkan maaliyadda uu dumiyo cashuuro kordhina iyo cashuuro toos ah oo uu qaadaya maaha waxaanu bislaanay inuu gaarnayba dawladaha caydha bixiyay soo tira kooba ee bulshada wax ku celiya lacagta tooska cashuura tooska qaada dal qaadi karana ma nihin dal dhaqaalihiisa ma nihin iyadoo markii hore $100 ay amahdeen sarfiyadu haddana intii yarada isku soo hadhay cashuur toosan qaadaya soo raaciya leydhka iyo soo raaciya telefoonka waxaynu qaadi karana maaha macayd baad bixinaysaa oo lacagtii inta bil camalka aad ku soo celinaysaa bulshada maaliyadda saxaafadda idinka ay weydiiyay baan leeyahay waa fahmi kay saxirsi bulsha TV Burco.